Xabi Alonso oo mar kale isku qoray buugga taariikhda Real Madrid kadib guushii Juventus. Real Madrid ayaa sii wadatay bilowgeeda cajiibka ah ee tartanka Champions League xilli ciyaareedkan 2025-2026 kadib markii ay saddexdii kulan ee ugu horeeyay oo ay ciyaareen wada guuleysteen. Kulankii ugu dambeeyay waxay 1-0 kaga badiyeen Juventus iyadoo ay hore u garaaceen Marseille iyo Kairat. Guushan ayaa tababare Xabi Alonso ka dhigtay macallinkii afraad ee taariikhda Real Madrid ee ku bilowda 3 gool oo xiriir ah tartanka Champions League kadib Jupp Heynckes, Carlos Queiroz, Jose Mourinho iyo Carlo Ancelotti. Xidigii hore ee Spain ayaa si la yaab leh ku bilaabay waayihiisa tababarnimo ee garoonka Santiago Bernabeu isagoo ilaa hadda ku guuleystay 8 ka mid ah 9 kulan ee uu hogaamiyay kooxda Real Madrid horyaalka La Liga. imtixaankiisa xiga ee weyn wuxuu noqon doonaa kulanka El Clasico ee Axadda marka Real Madrid ay wajahayso Barcelona ciyaar saameyn weyn ku leh tartanka horyaalka La Liga. maalin wanaagsan saaxiibayaal, warbixintan koobanna waxay qayb ka tahay barnaamijkeeni bandhiga ciyaaraha oo aan maanta ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.